Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaaray sida u idishihiin ba kusoo dhawaada channelkeena. Haddii aad nala socotay fadlan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Horey oogu sii soco videoga. Haddii aad nagu cusub tahayna fadlan subscribe inoo saar. Haddaba caawa waxaan halkani kaga hadlaynaa ciyaaryahanada Arsenal ay soo saxiixayso, kuwa ay loonka ku dirayso iminka haatan, iyo ciyaaryahanada injury-ga ka galay. Haddii aan ku bilaabo khad dhexe ay Arsenal maalmahanba ay raadinaysay ciyaaryahankii ugu dhawaa uguna cadcaddaa ay Arsenal inay saxiixdo ay doonaysay dadka dhanna wada filanayeen wuxuu ahaa Moises Caicedo. Ciyaaryahankaas waa ciyaaryahan 21 sano jir ah, una ciyaaro Brighton, khibrad fiicanna u leh Premier League, kaasoo weliba aad loogu ammaanay tackling, welibana uu la sheegay in through passaska horey loo wada hayo khadka dhexe badi aadka ooga baxa ee boxka ku dhex dhaco inuu ooga badan yahay Partey. Ayaa Arsenal ciyaaryahanka ay aad u raadinaysay, waxayna wararka maanta la dhex marayay in Arsenal ciyaaryahanka markii ugu dambeysay 3 mar ay Arsenal ay lacag bandhigtay, mar 60 milyan ay bandhigtay, waxaa ku horeysay Chelsea oo 55 milyan ayada ka hor ku hor tuuratay, taasoo la soo diiday. Arsenal ayaa ka dambeysay oo 60 milyan bandhigtay, sidoo kale iyaduna waa lagu soo celiyay. Markii labaad ay shalay Arsenal waxay isku dayday inay lacagta ay improve gareyso wax ku darto, taasoo ay gaarsiisay lacag dhan 70 milyan, taasoo isla markiiba Brighton ay soo celisay. Weliba coachka uu sheegay in uusan dooneynin in ay ciyaaryahankan ay iibiyaan January-dan hadda lagu jiro, mar kale waa laga yaabaa, laakiin xilligan hadda la taagan yahay waxay sheegeen inaysan ay diyaar u ahayn inaysan iibiyaan. Sidoo kale ciyaaryahanka ayaa training ka maqnaa maalmahan, isagoo welibana page-kiisa Instagram-ka soo bandhigay inuu doonayo inuu ka tago Brighton, oo aadna uga mahadceliyay Brighton waqtigii ay siiyeen iyo fanska qaabkii u soo dhaweeyeen. Hase ahaatee uu ciyaaryahanka ku riyoonayay weligiisba inuu club weyn uu ciyaaro, mar uu club weyn uu ciyaaro, maadaama 9 uu sheegay carruur oo isaga la dhalatay koris ay ka sugayaan. Hase ahaatee Brighton weli waxay ku adag yihiin in aysan dooneynin ciyaaryahanka inay iibiyaan. Sidoo kale Arsenal maanta ay waxay bandhigtay lacag 80 milyan ah, taas oo wararka qaarna ay sheegayeen in Arsenal ciyaaryahanka laga aqbalay 80 milyan, 5 sanana uu ay saxiixi doonaan. Hase ahaatee hadal baa ka dambeeyay oo ah in coachka uu sheegay in ciyaaryahanka ay sinaba aysan ka iibineynin game-ka soo socda ee Bournemouth ay la ciyaari doonaan, uu coachka ka fikiri doono inuu ciyaaryahanka ciyaarsiin doono iyo in kale. Wararkiisa ciyaaryahanka halkaa ayuu marayaa, coachkana waa aad ayuu ugu adag yahay oo wuxuu isleeyahay umaleyn Arsenal ha isku soo dhisin oo Premier League ha kusoo dhisin, miyuu ka xasdayaa waan fahmi waayay. Ciyaaryahanka Arsenal hadday hesho ma waxay isleeyihiin Arsenal Premier League-geedu waa binaanka. Hase ahaatee ciyaaryahanka weli wuxuu rabaa in uu Arsenal ama club kaloo weyn uu aado, intaana ay Brighton kaga eg tahay. Hase ahaatee maadaama contract-giisa weli uusan dhicin, Brighton ayaa ciyaaryahanka gafuurka hayso. Berri waxaa la leeyahay waxaad ku soo noqonaysaa training ground-ka, inkastoo ay wax walba isbedeli karaan. Waxani waa suuq, isla caawa ayaa laga yaabaa ciyaaryahanka 80 milyan in ay isdhahdo Brighton. Ciyaaryahanka maanta waxay soo iibsadeen ciyaaryahan midfield khad dhexe oo booskiisa dheel ay soo iibsadeen, laga yaabo inay isdhahaan waa lacag, waa record. Ciyaaryahankan 85 milyan ba Arsenal maanta waad ka qaadi kartaa inay isdhahaan, oo Arsenal sida ay ciyaaryahanka ku helaan. Halkaasi waa ciyaaryahanka iyo khadka dhexe. Sidoo kale Arsenal waxay raadinaysay sida ogeydeen ciyaaryahankii ahaa Yuri Tielemans, kaas oo imika ay u egtahay inaysan suurtagal ahayn, maadaama Leicester ay aad ula xarbinayso inay ay ku dhowdahayba inay sanadkan aad looga baqayay inay relegation ay aado, taasoo welibana ay sheegeen haddii ay ka badbaadaan relegation-ka in ay January-da maalmaha u dambeeya ama suuqa dambeba ay ogolaan doonaan lacag, weliba ayagoo sheegan doonaan lacag aad u tiro badan. Hase ahaatee Arsenal waxaan isleeyahay ciyaaryahanka waxay sugi doontaa inta uu free ka noqonayo, maadaama season-kii kala bar hadda uu sii ordayaba. Hase ahaatee Arsenal waxay wararka sheegayaan in haddii ay macquul gal ay tahay price fiican ay ku helaan January-dan hadda
maadaama khamiistan soo socota oo maaragtay uu xidhmayo suuqa ay maaragtay maalmaha u dambe isku dayi doonaan in ciyaaryahankaas ay maaragtay hal iyo mar ay isku dayaan in ay maaragtay ay soo heli karaan haddii ay Moises Caicedo ay heli waayaan. Sidoo kale waxay Arsenal loan ay ku diraysaa garabkii cusbaa ee Brazilianka ahaa ee mar dhow ay soo iibsanaysay kaasoo lagu magacaabo Marquinhos kaasoo aadaya weliba Norwich City oo hadda Championship ka ciyaarayaan. Ciyaaryahanka ayaa wuxuu aadi doonaa halkaas inta ka dhiman season-kan. Sidoo kale waxaa isna loan ku bixi doona mar dhow Cedric Suarez kaasoo weliba Fulham ay dooneysay inay iibsato ayna awoodi weysay maaragtay in ay bixiso lacagta uu ciyaaryahanka uu qaadanaya per week ayadoo weliba lacag saa u badan ay ahayn oo ay tahay keliya 80,000 weegii ama isbuucii. hase ahaatee waxa ay ku qaadan doonaan Fulham sida ay Arsenal iyo ayaga ku heshiiyeen wadahadalkana weli uu usii socdo. Sidoo kale Martinelli ayaa waxa uu saxiixi doonaa gordhow 4 sano oo heshiis kala ah kaasoo uu kusii dheeranayo heshiiskii Arsenal uu kula jiray ee dhammaanayay 2024. heshiiskani wuxuu socon doonaa ilaa 2027 halka ayuuna maaragtay ciyaaryahankaas maaragtay uu ku daba dhammaan doonaa oo 4 sano ayuu saxiixi doonaa. mar walbaba wuxuu dhihi jiray qalinkan hala ii dhibo. Arsenal ma garanaya hadda waxay 4 sano kaliya ciyaaryahanka uga saxiixayso. waxaa la rabay ciyaaryahan kale oo kale markay ugu yartahay inay maaragtay 5 sano maaragtay 6 sano aad intaad ka xareysato oo maaragtay price tag aad saarto aad dhahdo 1 milyan way la iibin maayo kan ninkii doonaya 1 milyan iska bixiyo sida Pedri iyo Gavi ay ku sameysay Barcelona. hase ahaatee waxay ahaataba 4 sano hadda ka dambe soo socota iyadoo waa waqti Martinelli-na aad ay ugu faraxsan yihiin Arsenal fans. asagana aad ayuu ugu faraxsan yahay ciyaaryahanka inuu maaragtay clubkiisa uu joogo club waliba maaragtay markii ay asagoo kasii ambabaxayo London oo aad ka qoostay u niyad jabsan oo Man United ay dhahday kan mar rabna na dhaafiya ay Arsenal soo wadatay. sida oo kale Arsenal ayaa maaragtay aad waxay uga xun tahay waliba kabtankeeda Odegaard performance-gii daraad uu soo bandhigay Sambi Lokonga asagoo waliba aad uga carooday qaabka uu ciyaaryahanka oo u position gareynayo qaabka uu maaragtay positionkii laga rabay qaabka uu u fahmi laayahay iyo maaragtay sida uu ugu dhex dhumay midfield-ka taasoo u sababtay gamekii habeen hore ee Man City ay la ciyaareysay maaragtay inay ku guul dareystaan. waxaa la sheegay ciyaaryahanka markii ay isla wada tageen dressing room-ka inuu aad ugu xumaaday maaragtay aadna ugu qayliyay isagoo ka xun waliba positionkiisa. Arsenal ayaa maaragtay iyadoo laftirkeeda ay leedahay ciyaaryahankani waxa weeyaan waqti badan buu u baahan yahay oo maaragtay in waqti badan la siiyo oo si ciyaaryahanka loo fahmo marka horeba inuu maaragtay isaga uu xun yahay positionkiisa uu xun yahay. hase ahaatee ilaa hadda wax war ah oo maaragtay in la iibinayo ama loan lagu darayo ayaysan jirin. sidoo kale Partey ayaa habeen hore isna injury galay kaasoo waliba scan lagu sameeyay markii dambena la ogaaday inuu maaragtay uusan ahayn mid saa u xun oo walibana gamekan soo socdo lala ciyaarayo Everton oo ugu soo horeeyaba uu dheeli doono. sidoo kale Smith Rowe ayaa isna habeenkaas injury galay isna waa laga soo tegay markii gadaal loo fiiriyay oo maaragtay Mikel Arteta la weydiiyayna waxa uu sheegay in ay tahay in maaragtay precautionary ay ahayd oo maaragtay laga ilaalinayo in gameka hadduu dheelo oo maaragtay oo injury kale uu sii qaado ama meeshii ay kusii halaawdo marka taxadar laga taxadaraya ayaa ciyaaryahanka isna dib looga dhigay habeenka gamekii Man City aan la lahayn. hase ahaatee labaduba waa diyaar oo maaragtay gamekooda ugu soo horeeya ay dheelayaan wax dhib ana halka kama jirto. haddii aan u dambeysiiyo 5 game ee ku xigta ee Arsenal maaragtay ay ciyaari doonto ayaa waxa ay kala yihiin Everton ayaa ah gameka ugu horeeya oo walibana aan gurigooda kula soo ciyaari doono. gameka ku xiga ah oo Brentford oo waliba aan la soo ciyaarnay markii labaad ay tahay kaas oo aan kula ciyaari doono gurigeena. Man City ayaa iyaguna aan kula ciyaari doonaa gurigeena. Aston Villa ayaa iyaguna kula ciyaari doonaa gurigooda. Bournemouth ayaa iyaguna kula ciyaari doonaa gurigeena. haddaba akhyaaray waxaad ila wadaagtaan waan ku faraxsanaan lahayd Arsenal inay saxiixdo Caicedo sidoo kaleete 5 game ee isku xigtana Arsenal imisa dhibcood ayay kala bixi kartaa weli ma aaminsan tahay in Arsenal ay Premier League qaadi karto.
haddana waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.